wanaagsan halkan waa idaacadda maanta magaalada Muqdisho ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka. Gudoomiye hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Shiismaan Jawaari oo ka hadlay weerar shalay ka dhacay Muqdisho. Wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya oo gaaray dalka Morocco. baarlamaanka Carabta iyo dowlado Carbeed oo si weyn u cambaarayay qaraxyadii shalay ka dhacay Muqdisho. maxkamadda ciidamada qalabka sida oo rag lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin Daacish xukun ku riday. guddi uu magacaabay madaxweynaha maamulka Jubbaland oo maanta baarlamaanka maamulkaasi ansixiyeen. wasaaradda xanaanada xoolaha ee maamulka Koonfur Galbeed oo sheegtay in aan la gowrici karin xoolo aan baaritaan la marsiin. akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah dadweynaha Thailand oo sanado badan kadib u dareeray goobaha codaynta. taariikhdu waxa ay tilmaamaysaa 24-ka bisha 3 ee March sanadku waa 2019. warka waxaa soo saartay Hodan Cabdiraxmaan Xasan Tahliil ayaa farsameynaya. Hodan ayaa si ambaqaadaysa. mahadsanid maxamed cabdullaahi cumar. bismillaahi raxmaani raxiim. dhageystayaal ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo dhammaystiran. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa xukun waxa ay ku filisay rag la sheegay inay ka tirsan yihiin Daacishta ka dagaalanta Soomaaliya. mawlid ciise maxamed ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya. xuseen cali maxamed muude oo magaciisa afgarashadu yahay Suheeb iyo Cabduqaadir Xaafid Xaaji Cali oo magaciisa afgarashadu yahay Qudaama ayaa loo haystaa kamid ahaanshaha Daacish. labada eedeysana ayaa mar ka wada tirsanaa al-shabaab waxa ayna sii doorteen inay ku biiraan Daacish oo ay sheegeen in ay jireen sababo ku riixayay ku biirisooda kuwaas oo ku qotoma dana shaqsi sida aargudasho iyo hanti. eedeysanaha koowaad ayaa sheegay in uu ku biiray al-shabaab sanadkii 2014 waxa uu kaga biiray tuulada lagu magacaabo Moordiinle. waxa uu sheegay in uu ku tashkiiliyay nin uu sheegay in uu qabo gabar abtigii dhalay. waxa uu sheegay sidoo kale in dhowr cisho loo tababarayay isticmaalka hubka fudud sida qoriga AK47. intii oo al-shabaab ka tirsanaa ayaa waxa ay gowraceen adeerkiis. intaas kadib ayuu sheegay in ay Daacish ku soo bandhigeen in uu ka mid noqdo waxayna u soo direen lacag oo safar ugu ambabaxo. waxa uu gaaray magaalada Gaalkacyo si halkaasi uu uga sii qaado mid ka mid ah Daacish oo jeedkiisu ahaa meel ay ku sheegeen buuraha Calmiskaada oo ay fariisimo ku leeyihiin Daacish. tababar kale oo dheeraad ah ay kooxda Daacish halkaasi ku siiyeen waxaana la tababaray isticmaalka hubka noocyadiisa kala duwan. sida uu sheegay waxa uu Daacish kaga soo tagay markii ay dileen saaxiibo badan oo ka yimid dhanka shabaabka kuwaas oo sheegay in loo arkay in ay ka fikir duwan yihiin ayna sidoo kale u yihiin al-shabaab basaasiin. ciidamada amniga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay gacanta ku soo dhigeen 14kii bishii 11aad ee sanadkii 2018. eedeysanaha labaad ayaa sidoo kale ahaa mid ka tirsan al-shabaab waxa uu kaga biiray al-shabaab tuulada Moordiinle sanadkii 2014. horaanteedii waxa uu sidoo kale ka shaqeeyay tuulooyin kale oo sida Janaale oo Dhiigle. muddo kadib ayuu ku biiray Daacish sanadkii 2016. waxa uu kaga biiray deegaanka Weedo oo dhaca duleedka magaalada Muqdisho. ku biiritaankiis kadib Daacish ayaa ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay gacanta ku soo dhigeen xilli oo ku sugnaa qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho sanadkii 2018 bishii 11aad 20keedii. waxaana maanta loo horkeenay maxkamadda ciidamada qalabka sida. labada eedeysane ayaa isku aqoonsaday halka ay ku socotay baaristooda. waxa ay sheegeen hay'adaha baarista in ay ka wada tirsanaayeen Daacish. ciidamada amniga ayaana u soo gudbiyay garsoorka. xeerlaalinta ayaa dalbatay in muddo lagu sii hayo xabsiga waxaana maanta lagu xukumay min 6 sano oo xabsi ciidan ah. waxaana sidaas sheegay gudoomiyaha maxkamadda sare waa gudoomiyaha darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute. eedeysanayaasha ayaa sidoo kale waxa ay haystaan fursad kale oo ay kaga dalban karaan maxkamadda Racfaan. mahadsanid mawlid ciise maxamed. guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka tacsiyay dadkii ku geeriyooday weerarkii shalay ee lagu qaaday wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee xukuumadda Soomaaliya.
gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa cambaariyay qaraxii shalay al-shabaab ay ku qaadeen wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda Soomaaliya gudoomiyaha ayaa ka tacsiyay dadkii ku geeriyooday inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Allah u naxariisto dhammaan dadkii ku geeriyooday falkaasi oo ku jiray wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Xildhibaan Saqar Ibraahim sidoo kale waxa uu sheegay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka in shacabka Soomaaliyeed loo baahan yahay inay garab siiyaan ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha maamulka Somaliland ayaa sheegay in dawladda Turkiga ay ka diideen wadahadaladii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Somaliland inay xaliyaan Maxamed Cabdullaahi Cumar ayaa warkaasi inoo eegay madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biix Cabdi oo maanta ka hor hadlayay golaha wakiilada ee maamulka Somaliland isla markaana jeedinayay qodbada sanadlaha ah ee dastuurka maamulkaasi uu farayo ayaa waxa uu sheegay in maamulka Somaliland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya dhexdhexaadinteeda ay dawladda Turkiga ku howlaneed muddo 7 sano ah isla markaana ka keenin wax natiijo taasi ayuu sheegay in ay ku wargeliyeen Turkiga isla markaana ay u sheegeen in ay ka baxaan faragelinta iyo sidoo kale inay dhexdhexaadiyaan arrimaha Soomaaliya iyo Somaliland waxa uu sheegay in ay dalbadeen in dawlado badan oo wadamada Soomaaliya xiriirkeeda daneeya ah lagu soo daro hadalkan si natiijo kale loo raadiyo dawladda Turkiga ayaanu in badan ka wada hadalnay iyadoo oo doonaysa inay kaligeed in la dhexdhexaadiso inaga iyo Soomaaliya hase yeeshee annagoo dareensan 7 sano oo Turkigu arrinta ku jiray in aanay wax midho ah dhalin waxaanu ku talinay in arrinta wada hadalku ay noqoto mid goobjoog ka ahaadaan ka wada noqdaan dhammaan dawladaha iyo ururada caalamiga ah ee arrinta wada hadalka u diyaarka ah ama daneeya codkaasina dhageystayaal wuxuu u dambeeyay warkii wariyahayaga Maxamed Cabdullaahi Cumar ee ku aadanaa madaxweynaha maamulka Somaliland oo sheegay in dawladda Turkiga ay dhexdhexaadin weysay khilaafkii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Somaliland wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa gaaray dalka Morocco Cali Axmed Xasan ayaa warkaasina faahfaahinaya wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo ayaa waxay booqasho rasmi ah ku tageen dalka Morocco booqashadani oo qaadan doonta muddo 2 maalmood ah ayaa waxa wasiir Cawad ku helinaya safarkiisa xubno diblomaasiyiin oo heerkoodu sareeyo wafdigan ka socda dawladda federaalka Soomaaliya muddada ay joogaan dalkaasi Morocco ayaa waxay wada hadallo la yeelan doonaan mas'uuliyiinta ku sareysa dalkaasi Morocco waxaana wasiir Cawad uu sheegay inay ka wada hadli doonaan waxyaabaha quseeya labadaasi dal wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Morocco Nasir Bourita ayaa waxa uu dhankiisa sheegay in labada dal ay ka wada hadlayaan xoojinta xiriirka labada dal ee soo jireenka ah iyo qaabkii ay saakaashan lahaayeen wadamada Morocco iyo Soomaaliya horumarinta dhaqaalaha labada dal baarlamaanka carabta iyo waliba dawladaha Carabeed ayaa waxay cambaareeyeen weerarkii qaraxyada ahaa ee shalay ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho Mulid Ciise Maxamed ayaa warkaasi mar kale inoo eegaya baarlamaanka carabta ururka iskaashiga islaamka ee OIC dawladaha Sacuudiga iyo Bahrain ayaa si kulul u cambaareeyay qaraxyadii shalay ka dhacay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho gudoomiyaha baarlamaanka carabta Dr. Michael bin Faham ayaa tacsi u diray madaxweynaha xukuumadda baarlamaanka iyo shacabka Soomaaliya geeridii ku timid wasiir ku-xigeenkii wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Saqar Ibraahim Cabdullah oo xubin hore ka ahaa baarlamaanka carabta kaas oo ku dhintay qaraxii la beegsaday wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wuxuuna gudoomiyaha looga bariyay in uu jannadii firdawsa ka waraabiyo marxuumka yeeladii iyo qaraabadii uu ka tagayna samri iimaan eebo oo ka siiyo waxaa tacsi taa la mid ah u soo diray dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed xogaha guud ee ururka iskaashiga islaamka Dr. Yuusuf bin Axmed Al-Uthaymi isagoo uu sheegay in ururka uu cambaareynayo weeraradii ka dhacay shalay gudaha magaalada Muqdisho wuxuuna sheegay in dawladda Soomaaliya ay ka taageerayaan dagaalka ka dhanka ah kooxaha waxa ugu yeeray xagjirka kuwaas oo ka dagaalama sida uu sheegay Soomaaliya
boqortooyada sacuudi carabiya iyo dowladda baxrayn ayaa si kulul u cambaareeyey qaraxyadii isxiga ee shalay gelgelaya magaalada muqdisho waxayna sheegeen in aad uga xun yihiin qaraxyadaasi lala beegsaday xarunta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha waxayna dowladda federaalk ee soomaaliya kaga tacsiyadeeyeen dadkii ku geeriyooday weeraradaasi waxayna sheegeen in dowladda federaalk ee soomaaliya ay garab taagan yihiin mar walbe cambaareynta qaraxyadii shalay ka dhacay gudaha magaalada muqdisho ayaa isi soo tareysa iyadoona dadkii ay waxyeeladu ka soo gaartay qaraxyadaasi weli lagu dabiibayo isbitaalada kala duwan ee magaalada muqdisho guddiga uu magacaabay madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa maanta baarlamaanka maamulkaasi ay ansixiyeen cali axmed xasan ayaa warkaasi mar kale inoo eegaya xilli xalay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe uu magacaabay guddi ka kooban 7 xubnood kuwaasoo u sheegay inay qabanqaabin doonaan doorasho la filayo inay ka dhacdo deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ayaa kulan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ay maanta ku yeesheen xildhibaanada maamulka dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxay ku ansixiyeen xubnaha guddiga madaxa bannaan iyo xuduudaha doorashooyinka dowlad goboleedka jubbaland guddigaasi oo koobnaa 7 xubnood ayaa waxaa xalay magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe dood dheer kadib xildhibaanaha dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxay cod gacantaha ku ansixiyeen guddigan oo kooban 7 xubnood kuwaasi oo la sheegay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland waxa uu tibaaxay in loo magacaabay baahiyo jira awgood guddigan ayaa maalmaha soo socda waxaa laga dhowrayaa inay qabanqaabiyaan doorashada dowlad goboleedka jubbaland oo bish soo socota lagu wado inay ka dhacdo deegaanada dowlad goboleedka jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa magacaabay guddigan xuduudaha iyo doorashooyinka jubbaland oo muddooyinkii dambe laga dhowrayay magacaabista guddigani xubnahan la magacaabay ee guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka jubbaland ayaa waxay ka kooban yihiin 7 xubnood waxaana laga dhowrayaa isku dubaridka doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa waxaa dhowr jeer lagu eedeeyay inuu la soo daahay magacaabista guddigani murashaxiin badan oo u loolamaya xilka madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxay madaxweynaha axmed maxamed islaam axmed madoobe ka dalbanayeen inuu dedejiyo magacaabista guddiga doorashada mana jiro ilaa hadda murashax si rasmi uga hadlay magacaabista guddigani inay ku qanacsan yihiin murashaxiintu iyo in kale halkaa warkaasi duhurna aad kala socotaan dhageystayaal waa idaacadda maanta ee magaalada muqdisho iminkana akhbaraadka caalamka ilaa iyo 50 milyan oo qof ayaa u dareeray goobaha codbixinta ee dalka Thailand oo ay ka dhacayso doorashadii guud tan iyo markii dalkaasi la afgambiyay sanadkii 2014 Thailand waxaa hareeyay xasilooni darro siyaasadeed muddo sanado ah taasi oo ka dhalatay isku dhacyo dhexmaraha militariga waa taageerayaasha militariga iyo sidoo kale taageerayaasha ra'iisul wasaaraha la afgambiyay ee Shanawatra kadib markii uu militariga xukunka la wareegay wuxuu balan qaaday inuu soo celin doono kala dambeyntii waliba dimuqraadiyadda balse dhowr jeer oo hore ay doorashada dalkaasi ay dib u dhacday dad badan ayaa qaba in dastuurka cusub ee militariga uu soo saaray uu wali saameyntiisa leeyahay si walba oo ay natiijada noqoto in ka badan 7 milyan oo qof oo da'doodu ay u dhaxayso 18 ilaa iyo 26 jir ayaa markii ugu horeysay loo ogolaaday inay codeeyaan boqorka Thailand ayaa waxa uu sheegay in dadweynaha dalkaasi loo baahan yahay inay ilaaliyaan nabadda iyo waliba kala dambeynta doorashada ayaa waxa ku tartamaya asxaabta taageersan militariga iyo sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Shanawatra guud ahaan war wixii dalkii daafaca caalamka inaga soo gaaray dhageystayaal oo aad ka maqleyseen raadiyaha maanta anigoo hodan maxamed jimcaale ayaa warka idinla socodsiinay tahlil ayaa u farsameynay ciduu warkayga seego waxay dib kaga daalacan karaan beedka internetka aan ku leenahay radio maanta.com idina waad ku mahadsantiin la socodkii dhageysiga warkayaga duhur